وعنا wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel waliba oo dunida ka joogtaan halkani waa Bandhiga TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad wararkeena ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay Fahad Yaasiin oo ay ka soo xirxirmeen dhammaan albaabadii rajada kadib markii maanta maxkamadda sare ee dalka ay soo saartay go'aan wadnaha jaray Fahad Yaasiin iyo gudoomiye Baashe Yuusuf oo balantii uga baxay madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin haddaba halkee ayuu ku dambeyn doonaa Fahad Yaasiin xogo iyo macluumaadyo ayaan idinkaga soo gudbin doonaa رئيس وزراء الرابل وكنا واقعي جوان علوس أو لحريرة دور الشدة مدحوينها محاكا جرى رئيس وزراء الرابل وشرحية كرسي فيلا الصومالية مدحوينها أمامك كونفور قلبنا waxa uu banaanka soo dhigay shakhsiga uu u rabo kursiga gudoomiyaha golaha shacabka iyo villa Soomaaliya oo tartanka gelinaysa murashaxiin dhowr ah oo uu ku jiro gudoomiye Mursal qodobada kale waxa kamid ah murashaxiintii ugu badnaa oo isu diiwaan galiyay jagooyinka gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xilli biri ay ku eg tahay waqtiga ay isdiiwaan gelinayaan murashaxiinta iyo guddiga fiid oo fariin hanjabaad u diray xubno ka tirsan guddiga kuwaas oo shalay tagay magaalada Garbaharey qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena Bandhiga TV daawadayaal haddii aad ku cusub tihiin shabakadan ku soo biira idinkoo subscribe saaranaya aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin warbixinada iyo muuqaalada aan halkan soo gelinayna si shargareeya u sii gudbiya saaxiibadiina kale ee idinkugu jira baraha internetka mahadsanidin aynu ku bilowno wararkeena maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta soo saartay go'aan lama filaan ku noqday Fahad Yaasiin Xaaji Daahir kaasi oo dhawaan ee maxkamadda u gudbiyay dacwad ka dhan ah guddiga doorashooyinka heer federaal go'aankan ayaana waxa uu noqday mid wadnaha jaray Fahad Yaasiin oo doonayay inuu markaasi natiijo fiican ka helo dacwadda uu geystay maxkamadda sare ee dalka maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah oo ay qaadatay ku diiday qaadista dacwadda kiiska kursiga la xiriiray Fahad Yaasiin ee Hob 86 taas oo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee uu qabay Fahad Yaasiin maxkamadda sare ayaa go'aankeeda sabab uga dhigtay in aanay awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka ee ka dhasha go'aamada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxa ayna aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dawladda oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee VID xafiiska ayaa doodii shalay ee maxkamaddu ay qabatay ku dooday in maxkamadda sare aanay awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 11aad taas oo maxkamadda ay ku raacday go'aanka waxaa saxiixay saddexda garsoore oo dacwadan dhageystay kuwaas oo kala ah gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf Axmed iyo garsoore Cabdulcasiis Maxamed Yuusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibraahim Diblaawe Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo hadda ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo horeyna u soo noqday agaasimaha hay'adda sirdoonka ayaa kursigaasi loogu doortay 20kii bishii February sanadkan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si kastaba waxaa doorashadiisa ku gacan seeray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan la marin habraacyadii doorashada u degsanaa taasina waxay abuurtay jahwareer iyo khilaaf cusub waxayna markii dambe uu Fahad Yaasiin dacwad u gudbiyay maxkamadda sare go'aanka ayaa imaanaya xilli aad loo filayay in maxkamadda sare ay soo saarto go'aan ay ku fasaxayso kursiga Fahad iyada oo la rumaysnaa in gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf uu aad ugu dhow yahay villa Soomaaliya arrintan ayaa dhabarjab weyn ku ah Fahad Yaasiin waxayna tani soo xirtay albaabkii ugu dambeeyay ee uu ku noqon lahaa xildhibaan manacada wadada xigta ee uu aadi doono maxkamadda ayaana markaasi qaraarkeeda amaba qaraarkeeda ku soo koobtay ilaa iyo markaasi 4 qodob oo kala ahaa in maxkamaddu ay diiday arjiga cabashada iyo sidoo kale in maxkamaddu ay aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud iyo inay markaasi go'aamisay in maxkamadda sare ee dalku awood u lahayn ka garnaqidda cabashooyinka ka dhasha go'aamada maamul ee doorashada dadban ee baarlamaanka iyo in ay markaasi xidhay galdacwadeedkan uu soo gudbiyay Fahad Yaasiin hadda xaaladiisu ma markaasi fiicna marka la fiiriyo sida uu wax u rabay iyadoo la filayay in markaasi uu kursigan ay u fasaxdo maxkamadda sare haddaba wararka la helaya ayaa sheegaya in gudoomiyaha maxkamadda sare Baashe uu markaasi ka baxay garabkii ama balantii uga baxay madaxweynaha iyo waliba sidoo kale Fahad Yaasiin oo ah la taliyihiisa dhinaca amniga waa hagaag qaybaha hore wararkeena ayaad dhageysanaysaan haatanna haddii aynu markaa fiirino xogo ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo la sheegayo inuu ku dhawaaqayo go'aan culus oo la xiriira doorashada madaxweynaha Soomaaliya xogaha isi soo taraya ayaa waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta
maxamed xuseen roble uu ku dhawaaqayo maalmaha soo socda inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Roble oo hore u sheegay in uusan dooneynin jagada madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda warar soo ifbaxaya waxay sheegayaan in ra'iisul wasaaraha damacaasi uu soo galay isla markaana uu qorsheynayo in uu ka mid noqdo murashaxiinta faraha badan ee u taagan kursiga Villa Soomaaliya. Ujeedada ugu weyn ee uu soo galayo ra'iisul wasaare Roble murashaxnimada Villa Soomaaliya ayaa waxay tahay inuu markaasi challenge adag geliyo amaba uu loolan adag geliyo madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaana xubnaha ku dhow ay hadda wadaan olole ku saabsan murashaxnimada ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble. Ra'iisul wasaare Roble ayaa mas'uul ka ahaa doorashooyinka dalka ka qabsoomay oo haatan markaasi soo idlaaday marka laga reebo maamulka gobolka Gedo. waxaana la sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu markaa u dhiganayo ku dhawaaqista murashaxnimadiisa Villa Soomaaliya marka la soo idleeyo doorashada gobolka Gedo oo lagu qabanayo magaalada Ceelwa. hagaag haatan aynu eegno madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Lafta Gareen oo soo gaaray magaalada Muqdisho shalay ayaa durbo bilaabay ololaha doorashada gudoomiyaha golaha shacabka. Lafta Gareen oo soo xulay dhammaan xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa xalay waxa uu kulan isugu yeeray 3 murashax oo ku dhow isaga oo xilkan doonaya kuwaas oo kala ah Xasan Cabdinuur, Xasan Eelay iyo sidoo kale Aadan Sanasoor nin la yiraahdo. sida ay sheegayaan ilawraadi lagu kalsoon yahay oo aynu soo xignay madaxweyne Lafta Gareen ayaa shaaciyay inuu si buuxda u dhisayo xildhibaan Xasan Cabdinuur oo ah nin dhalinyaro ah oo markaasi aad ugu dhow. waxa uu sidoo kale ka dalbaday Xasan Eelay iyo Aadan Sanasoor inay tartanka ka haraan oo ay markaasi taageeraan Xasan Cabdinuur. xildhibaan Xasan Cabdinuur ayaa la filayaa in uu murashaxnimadiisa si rasmi ah u shaaciyo xaflad weyn oo la filayo caawa inay ka dhacdo hoteelka Dikaale ee Muqdisho, taasi oo lagu marti qaaday xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xasan Cabdinuur ayaa sidoo kale la qorsheynayaa inuu loolan adag markaa la galo Sheekh Aadan Madoobe iyo Cabdullaahi Balaag oo iyagana xilkan u sharaxan inkasta oo la sheegayo in rajada Aadan Madoobe aysan badnayn oo loolanka adag uu markaasi la gali doono ninka la yiraahdo Cabdullaahi Balaag. murashaxnimada Xasan Cabdinuur ayaa tijaabo u ah awoodda Lafta Gareen ee baarlamaanka iyo sida ay ugu xiran yihiin xildhibaanada uu soo saartay, waxaana guusha Xasan ay tusaale u noqon doontaa sida xildhibaanada Lafta Gareen u saameyn karaan doorashada madaxweynaha. geesta kale siyaasiyiin xogogaal ayaa sheegay inay adag tahay in Xasan Cabdinuur laga gado xildhibaanada sababo la xiriira khibrad la'aantiisa, balse haddii uu guuleysto ay ka dhigan tahay halis cusub iyo baarlamaan ka sii xun midkii uu hogaaminayay sanadihii la soo dhaafay Mursal. magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta markaasi shahaadooyinka murashaxnimo qaatay xubno dhowr ah oo u tartamaya guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. xubnihii ugu badnaa ayaa maanta isdiiwaan geliyey iyadoo sidoo kale markaa xubnihii Villa Soomaaliya ay markaa maanta shahaadooyinka qaateen, waxaana ka mid ah gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ku dhawaaqay inuu mar kale u tartamayo xilka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, waana shakhsi nabadii nolola. sidoo kale waxaa isdiiwaan geliyey Mahad Cabdalla Cawad oo isaguna markaasi ah nabad iyo nolol isla markaana u tartamaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka dhinaca aqalka sare. iyaguna waa la iska diiwaan geliyey oo waxaa markaasi shahaadooyinka qaatay sanataro ay ka mid yihiin Cabdi Xaashi oo u tartamaya qabashada xilka gudoomiyaha aqalka sare. xilkaas hore ayuu u soo hayay sanadihii la soo dhaafay. waxaa sidoo kale isdiiwaan geliyey senator Cabdullaahi Cali Xirsi oo u tartamaya qabashada xilka gudoomiye ku-xigeenka labaad. gudiyadu waxay sheegeen inay sii wadi doonaan diiwaangelinta. maalinta birta ah ayaa la soo gabagabayn doonaa haddii aysan wax isbedelin diiwaangelinta murashaxiinta, balse intii la filayey waaba ay isdiiwaan geliyeen oo murashaxiintii la saadaalinayay in ay boosaskan isku soo sharaxayaan waa ay isdiiwaan geliyeen. ugu dambeyntiina qoraal ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee heer federaal gaar ahaan guddoonkiisa ayaa baaq loogu diray xubno ka tirsan guddigaas oo shalay gaaray Garbaharey. guddiga doorashada ayaa ka digay in xubin waliba oo guddigan fid ka tirsan oo qaada tallaabo aan waafaqsaneyn go'aankii guddiga ay ku sifoobi doonaan kuwo caqabad ku ah hannaanka geedi socodka iyo dhamaystirka doorashooyinka cawaaqib xumada ka dhalatana ay mas'uuliyaddeeda iyagu qaadi doonaan. go'aanka ka soo baxay guddiga ayaa ku soo aadaya xilli xubno ka tirsan guddiga oo ku xiran Fahad Yaasiin iyo Farmaajo ay shalay gaareen magaalada Garbaharey, halkaas oo ay ka socoto qorshe looga soo horjeedo in doorasho lagu qabto Ceelwaaq. waxaana hadda guddiga VID uu hanjabaad u diray xubnahaas isagoo ugu goodinaya in markaa tallaabo laga qaadi doono. tallaabadan ayaana iska muuqata oo iska cad, waxaana markaa la filayaa
in haddii arrintaasi ka wantoobi waayeen xelalkooda markaasi ay waayaan. guud ahaan warkii intaas ayuu inooga dhan yahay. warkan war la mid ah intaana dib ugu kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.